Dabagaaluhu wuxuu u istaagaa. Inta badan waxaad aragtaa dabagaalaha inuu istaago, weliba is-dhereriyo oo qoorta kor u yara taago. Su-aasha isweydiinaysa waxa ay tahay sababta uu istaagayo dabagaalaha, weliba uu iskula dhereerinayo, uu madaxa u taagayo maxay tahay? Waxaan kusoo qaadan doonaa muuqaalkan in yar oo faahfaahin ah ama sheeko xariiro laga sameeyey waxa ku kalifaya inuu istaago dabagaalaha, uu gacmahana kor u taago. Sheeko bareley ayaan kusoo qaadan doonaa mawduucan. Haddii ay tahay booqashadaada kugu horeysay, fadlan kanalka subscribe noo saar, siina share garey. Mahadsanid. Waxaan gudagalaynaa sheekada. Waxaa la yidhi berigii hore dabagaaluhu sida uu hadda u istaago ee ah in uu lugaha hore kor u qaado, uu kuwa dambena uu ku joogsado, sidii qof oo kalena uu isla dhereriyo ma lahaan jirin. Taasi sababta uu ku bilaabayna waxay ahayd baa la yidhi, habar dugaag ayaa ku tashatay inay sida dadka isu guursadaan, si ay sida dadka ugu tarmaan ama ugu bataan. Xayawaanadii badanaa ee laba la isugu guuriyey waxaa ka mid ahaa dabagaale iyo abeeso. Dabagaale markii ay taasi dhacday ma diidin abeeso, raallina kama ahayn 100% oo wuu ka yara baqayay. Sidaa awgeed ayuu waqtigiisa wuxuu ku dhammaysan jiray meelihiisa kale. Abeesadu lafteeda markii uu dabagaale maqnaanshihiisu badatay ayay go'aan ku gaartay in ay marka ugu horeysa ay ag hesho qaniinto oo ay sumayso oo disho. Iyada oo doonaysa in ay arrintaa fulisana waxay dhowr mar fariin u dirtay dabagaale. Xayawaano kale way ugu dacwootay. Dhowr fariin markii ay dabagaalihii isaga daba yimaadeen, oo ay xitaa xayawaanadii qaarkood ku yiraahdeen, orod nacas yahow, abeesadu way kuu rabtaaye oo way kuu baahan tahaye u tag. Guri fiican u diyaari oo la aqal-gal, ayuu maalintii dambe god inta uu qoday ku yidhi ha soo guurto abeesadu. Godkan ayaan wada galaynaa oo isku aroosaynaaye. Markay isu yimaadeen ayaa la isku qabtay, adiga gal iyo adigaba gal. Abeesadu waxa ay doonaysay in dabagaaluhu marka uu godka galo ay iridda ka fadhiisato, oo ay halkaa qaniinyo kala daasho, oo ka dheragto oo uu waabiyo u dhinto. Dabagaaluhuna taasi taxadarkiisa ayuu ka qabay. Markii uu diiday inuu horgalo ayay iyadii ku qulqushay godkii, madaxiina soo laabtay oo bannaanka soo dhigatay oo ku tiri, soo gal aan wada seexanee. Ilaahayaa ileh inta uu yidhi ayuu cagaha wax ka daayay oo duurkiisii iska galay dabagaalihii. Dhowr cisho haddii uu ka maqnaa ayay abeesadii ergo u dirtay habar dugaag oo ku tiri, war ninkii iga tagiye oo gurigii cusbaa keligii ayaa ka noolee, wax ila qabta. Xayawaanadii oo yaaban ayaa aad u canaantay dabagaalihii, waxayna ku amreen inuu u tago. Inta uu orday oo uu is yidhi u tag ayuu arkay iyada oo caraysan oo godka ka soo jeeda, malabsanaysa. Markaas ayaa inta uu labada lugood ee hore kor u qaaday oo xiniinyihiisii tusay ayuu ku yidhi, abeesooy, sidaas ku uurayso ama iska joog, aniga iyo adiga dushaas ayaan iska qabaynaa. Ilaa waagaas dabagaaluhu haddeer sidii ayuu kor ugu istaagaa, isaga oo leh tus abeeso xiniinyahaaga. Waa hagaag. waxaan soo qaadan doonaa sidoo kale murti iyo hal xiraale ayaan soo qaadan doonaa. La soco murtida ugu horeysa waxa ay leedahay, maahmaahdu
waa xigmad yar oo laga soo gooyay tijaabin dheer. Maahmaahdu waa xigmad waddooyinka. Maahmaahdu waa sheekada waayeelka. Maahmaahdu waa oraahda qof iyo xigmad dhammaan. Maahmaahdu waa quruxda hadalka. Maahmaah kastaa waqtigeeda ayay xigmad tahay. Intaas waxay ahayd murti. Haatanna waxaan soo qaadan doonaa halxiraalaha toddobaadka. Halxiraalaha toddobaadka waxay tahay halxiraalahan toddobaadka waa inaad kasoo jawaabtaa. Waxay tahay sheeg tiro haddii aad foorariso kordhaysa. Sheeg tiro haddii aad foorariso kordhaysa. Waxaan filaynaa fahanteen kana soo jawaabi doontaan halxiraalahaas insha Allah. Fadlan kanalka subscribe saar, like-na saar, siina share garee. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Thank you. mahadsanidin.